iyadoo ay jirto heshiis ay dhawaan galeen Ethiopia iyo Soomaaliya ayaa waxa maanta ka hadlay xisbiyada dalka ka jira oo maanta kulan ku yeeshay xarunta xisbiga Garsoor ee magaalada Muqdisho waxaana gabadh qodobadii shirka ka soo baxay saxaafaddu u faahfaahiyay xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji oo ah gudoomiyaha xisbiga Garsoor. bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursaliin. waxaan rabaa inaan idin sheegno halka kan oo ah xarunta xisbiga Garsoor waxaa maanta ku shirsan xisbiyadii diiwaan gashanaa oo dawladda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ka ahaa xisbiyadii siyaasadeed oo la diiwaan geliyay oo la aqoonsaday guddiga doorashooyinka qaranka. kulanka yagan oo maanta aanu isugu nimid xarunta xisbiga Garsoor waxaanu ku falanqaynay ka wada hadalay arrimo dhowr ah oo ahmiyad gaar ah u leh dalka iyo dadka iyo dawladnimada Soomaaliyeed. arrimahaas oo run ahaantii arrimo ayaantan taagnaa saddex qodob oo mid ka mid yahay isafgaradkii muxuu ahaayeeto ayaantii dhaweyd madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay soo saareen oo 16 qodob ka koobnaa ay ka mid tahay darbiga dawladda Kenya ay marinayso muxuu ahaa xadka aan la aqoonsanayn oo ay ka mid tahay arrintii badda oo muxuu ahaa dawladda Kenya iyo Soomaaliya isku haysatay dawladda Kenya ay ku haysatay Soomaaliya ku dacweynaysay. saddexda qodob baan ka hadalay qodobka ugu weyn wuxuu ahaa qodobka u horeeyay oo ah safgaradkii u dhameeyay oo 16 qodob ka koobnaa oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia. waxaan rabaa inaan idin sheego anoo ku hadlayo magaca axsaabta halkan fadhida oo aan aad ugu soo dhaweynay gudoomiyaashooda arrintaas falanqayn ka bacdi ee noo soo baxday inaanu qabanno guddi ka kooban xisbiyada oo si qodo dheer oo cilmi ah u falanqeeya u lafagura arka wixii aan dan ahayn ka saara markaa ka bacdina go'aan ka gaara ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya iyo baarlamaankana u soo gudbiya. waxaan shaki ku jirin in aad loo walwalsan yahay waayo annagii Ethiopia meel baa wax noo joogeen meeshii wax noo joogeen meel aan ahayn ayaa si degdeg ah warwa soo baxay saacado gudahood. marka arrintaasi waxay noqotay arrin muxuu ahaa qof walba su'aal iska weydiiyo dhinac walba su'aalaha la isweydiinaya waxaan rabnaa annagoo aan fududaan inaanu la faguro waa wax khuseeya ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogto oo salkana ku haya dawladnimada Soomaaliyeed madax bannaanida Soomaaliyeed midnimada Soomaaliyeed nabadda Soomaaliyeed dhaqaalaha Soomaaliyeed waxaasoo dhan ayaa laga hadlay qodobada. marka waxaan doonaynaa inaanu maxaan sadanahayn inaanu muxuu ahaa falanqayno hadaa laydmo ka bacdina aanu la wadaagno u soo gudbino shacab weynaha Soomaaliyeed iyo dawladda iyo baarlamaankaba. sidoo kale labada qodob oo darbiga oo muddo socday arrintiisu muddo taagnaa oo dadka Soomaaliyeed aysan raalli ka ahayn oo mowqifkeedu iska cad yahay iyo arrinta badda oo iyadana aanan muxuu ahaayeeto sida ay dawladda iyo dadka Soomaaliyeed qabaan aanu ka qabno oo ah in mid ahaanta dhulka badda Soomaaliyeed biri iyo bad iyo cirba iyo hawaba muxuu ahaayeeto inay tahay lana taabtaan ayaanu muxuu ahaa ka qabnaa arrintaas iyada ah arrin cusub oo ma ahan uguba ma aha labada arrimood. kulley go'aanku sida dadka Soomaaliyeed qabaan iyo dawladda noqon doontaa laakiin qodobka kan u dhameeyay oo ah 16 bisha Soomaaliya markii ay soo saareen muxuu ahaa communique la soo saaray ayaanu aad u falanqayn doonaa daalaydno maalmaha soo socda guddigaasina maalin uu noqon doona waa shaqayn doona daalaydno wixii go'aanana waxaanu u soo gudbin doonaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda aad iyo aad u mahadsantihiin. Cabdiwahaab Aadan Cabdiraxmaan telefishinka caalamiga SBS Muqdisho.